أهلا وسهلا محمد كسر دو تلفزيون كيونيفرسال iyo barnaamijka Hirar Hargeysa aad iyo aad baad u mahadsantahay in barnaamijkan aad nagala soo qayb gasho maxamed wariyaal fara badan iyo siyaasiyiin fara badan baad codadkooda sameysay oo caan ku tahay goormaad bilowday markii ugu horeysay arinta wallahi tadbiis diintii anigoo ciyaala ayaan baakadada sigaarkan baa warqada dib uga saaro ayaan waxaan ku bilaabay ninkii loo jiray maxamuud xasan waatay maxamuud xasan xaaji cumar waatay codweyna sida sheekh cabdinuur sheekh maxamed isxaaq ayaan codka ku bilaabay dabeetana ciidamada gaashaanbuurta nay tooban run jiray waatay maxamuud xasan hadda bal codkiisii wax naga maqashay ciidamada gaashaanbuurta nay tooya sheegay inay sii wadayaan dagaalka culus ay ku hayaan caasimadda Jugoslav halaya muddada kama dambaysta madaxweyne Milosevic wadankaasi uu ka tegay waxaan qof ayaa dhageysta dhiigga loo diray halkaasi oo la sheegay in madaxweynaha Milosevic uu ku hayo dagaal culus Serbiyiinta Bosnia marka dabcan waa wariyihii hore ee laanta af Soomaaliga ee BBC da Maxamuud Xasan isaga kugu horreeyay marka qof aan codkiisa matasho qofka aan codkiisa matala isaga igu horreeyay waatay dadkii marka aad sidan oo kale ugu akhriday markii ugu horreysay ma yiraahdeen dawaa Maxamuud Xasan halka soo taagay waa Maxamuud Xasan baa la oran jiray dabeetana ayaan waan kordhiyay waatay nin Nairobi ka hadli jiray oo loo jiray Axmed Maxamed Nairobi Axmed Taajir ay dadku dacaydeen ama geel fara badan iyo waxay ku dacaydeen jireen man ayaan bilaabay waatay Axmed Taajir bal hada codkiisa maqashay islaan sideeta jira ayaa waxa la sheegay inay timi dugsiga hoose dhexe halkaasi Kenya ku yaala halkaasi oo la sheegay inay wax ka baranaysay macallimiintu waxa sheegeen inay halkaasi u diideen balse lagu qancin kari waayay aynay iskuulka asare wax ka barato waa tahay wariyaasha kale codadkooda aad samayso iyaga way noo soo noqon doonaa bal hadda dhinaca siyaasiyiinta iyagana yaad ku bilowday siyaasiyiinta waxaan ka bilaabay horta siyaasiyiinta waddanka maanta daahir yaala kaahin ayaa waqtigii ololayaashii xisbiyada ayaan bilaabay inaan codkiisa keeno way waqtigaa anigoo marxaladii siyaasadeed ee waddanka dhex galay xisbigii markaa kulmiye taageeray ku noqday madaxii wacyigelinta degmada Gacan Libaax ayaan bilaabay inaan madaxweynihii anoo iminka ka raali gelinaya maadaama siyaasad kulana dhex martay meel kasta oo jooga madaxweyne daahir yaala waxaan leeyahay inuu saamaxno ayaan markaa bilaabay inaan codkiisa keeno way markaa moobilada waddanka Soomaaliland oo dhan kala badh ku jira way ama Axmed Saciidiga iyo matalaya daahir yaala way Axmed Saciidiga waa noo soo noqon doonaa bal hadda daahir yaala wax naga maqashay daahir yaala la wareysanay madaxweyne Soomaaliland siyaasiyiintu waxay kugu eedeynayaan in aad Soomaaliland adigu qaska gelinayso oo xidhay xarunta xisbiga kulmiye idinko ka baadhaya ilaa yiraahdo Yoodiyaal oo sheegeen in aanay ahayn ilaa taalayn xarintooda bilaa maxkamadna aad ku gashay arrintaas maxaa ka jira waanu baadhayna Soomaaliland waxaan sheegay jiraan yuma xanaasho waanu baadhi doonaa wax la wixii sharci darrana waan ka hortagina ummadda Soomaaliland ما رجتاني إحنا ليش ما جرتو إذا أنا كأقبلين أنا ما جرتو وأنا شيء يا شرايو هدي دوري يعني دورشوا حلو حلال يقان حل كده يقان أنا أقول لي كردي تيور ما أنا جا قبتي كنا كلها قلت لي كردي أنا شيء يوم دريس مال حسبي كلمية حسب قص وديان وفي النورية وي madaxweyne arrintaasi waxay kaga calaysisay xisbiga kulmiye oo taagan madaxweynuhu doorashada isaga dib u dhigaya oo hadii waxay doorasho la qaban lahaa kolba guurtidii soo gudbinaya in hadii ilaahay yiraahdo dib loogu dhigo arrintaasi maxaa ka jira waxba kama jiraan doorashadii hore baan qabtay waxa lagu wasbay in doorashada dib u dhigo arrintaasi aan wadiyo ma aragtaanay كلنا قرقب شبيه كم قرقريسو دور شدو وحي وباهن تعلي يحوق ما باهن جالسين يكون عليه حزب waxaan ka warhayaa maxamedin siyaasiyiin Soomaaliyeed oo kale iyagana codadkooda aad samayso kuwa ka mid ah
waxaa ka mid ah salaad cali jeelle oo muddo fara badan dee reer waqooyigu ma wareystaan dadka maskaxdooda wax kusoo dhacaan soomaalida marka tiraahdo qeybteena reer waqooyi wali waxba kama duubaan in badan oo siyaasiyiina qalbigeyga ka baxday laakiin salaad cali jeelle iyo inaan hayaan filayaa cabdillaahi yuusuf waata cabdillahi yuusuf aan ku horeyno waxaan idiin sheegahaya magaaladii muqdisho in lagu bulqdaa baa loo baahan yahay ummadii soomaaliyeedna in laga xoreeyo fidmowlayaasha ayaa loo baahan yahay magaaladii muqdisho in la tagaayo wadnaha la gufaystaa baa loo baahan yahay dhinaca somalilandna waxaan leeyahay wadanka yare boorama kasoo duulay ee laascaanood qabsaday inuu boorama ku noqdaa baa fiicnayd annagu ninkii meeshan haysa jiray ee ka horreeyeyna agaa la odhan jiray saaxiib baanu ahayn oo waraaqii waxay yaalaan xafiiskiisa inuu baadho waraaqii uu ka eegaabaa wanaagsan waxaan u sheegahayaa somaliland inaan beelaha walaalaha ay wada degaan la isku dirin oo fidmo la dhex dhigin waatay wariyayaashii qaar kaloo kamid aynu kusoo noqon doonaa iyo dadka kale ee bulshada magaca kule kuwa codadkooda aada hayso laakiin bal hadda waxaad ka warantaa maxamed salaad cali jeelloo kale isagu siduu hadlaa salaad cali jeelloo kale wasiirka xogeenka gaashaandhigga ee soomaaliya oo aan khadka telefoonka kula xidhiidhnay ayaa wuxuu sheegay arrintaasi ethoobiyan inay la socdaan inaanay jirin waana kan adeerow ciidan etoobiyaan aanu wadanaa ma jiraan ciidamadeenu dagaalka ay ku jiraan argagixis ay kula jiraan ciidamadeenuna waxay la dagaalamayaan argagixiso waaye ciidanka etoobiyaanu wadanaana tababarayaal waaye oo dowladda soomaaliya xaq bay u leedahay ciddii ay keenayso salaad ma waxaad leedahay ciidanka etoobiya ee wata kaarayaasha iyo madaafiicdu waxa weeyaan ciidan tababarayaala hadday tababarayaal yihiin maxaa madaafiicda ku raray adeerow idinkaa sheegaya ciidanka etoobiya ee kaarayaasha wataa wax ka jiraan ma jiraan inaad meesha timaadaan baa wanaagsan ood idinku indhihiina ku aragtaan waxaan la dagaalamaynaa argagixiso waayo argagixisadana ciidanka iyaga cidda ka tababaraysa xaqay u leeyihin salaad ma waxaad leedahay ciidan wariyaal ingiriisaa yimi oo ad u diideen xeryaha militariga markaasoo nagana noo diidi maysaan haddii aanu dhimadno adeerow dowladda soomaaliya xaq bay u leedahay xeryahooda ciddii ay u diidayaan angolaashiya iyadoo laga haysan in ciidamo kamarad loola galo waad iskala garanaysaano kaas sidaasoo kale u hadlaa salaad cali waa tay maxamed waxaan ka warhayaa in shariikadaha telefoonada ee hargeysa qaarkood aada fariimaha adigu u duubtay marka ayaad iska dhigaysay axmed maxamed waa tay halkan uu yidhaa naga raalli ahaw numberka aada garaacday waa dasan yahay ama wuxuu ka baxsan yahay goobta adeega saasoo kale weliga axmed maxamed ma la kulantay ama dadkaa kale siyaasiyiinta iyo wariyayaasha le aada codadkooda samaysid may goladan qaranka t v-ka qaranka mooyaane lamaan kulmin waa tay wariyayaasha maxamuud xasan baanu maqalnay waxaanu maqalnay oo kale axmed maxamed kuwa kaloo codkooda aada samaysaa ma jiraan ha way jiraan waay cabdillaahi xasan jaamac baa jiray cabdillahi xasan jaamac waa cabdillaahi ruush waa tay madaxweynaha raashiya valadimir putin ayaa sheegay inuu dagaalka chechnya uu sii wadayo madaxweynaha raashiya mar uu ka hadlayo dalka kan america raashiya wuxuu sheegay inuu dagaalkaasi aanu joojinayna ilaa iyo muddada kama dambaysta ciidanka chechnya ay ka baxayaan buraleyda agoloji waa tay wariyayaal kugu adkaaday oo codkooda aada samayn kari weyda ma jiraan kolley waa badin waa tay kuwa kamid ah waxaa kamid ah cabdisalaan heriri oo nimanka la fadhiyo waa tay bal hadda isku day miyaad isku dayi kari weyday saarin ku hadlayo kale adiga iyo ninka cawkalayda hay cawkan aada u saaxiibnahay oo isaga dee aan hay labadaa nin ma hayo laakiin yonis cali nuur waa tay yonis cali nuurna hadda waxaan hubaa qaar fara badan oo daawadayaasha kamid inay jeclaan lahay inay maqlaan ciidamada ruushanku diiradaha ay leeyihiin ee loo yaqaano sagaashan ayaa waxay dulmareen badda pacifica oo ay ku tababarayaan ciidamada maraykanku halkaasi oo diyaaradaha ay ka hor direen ay gaari waayeen xagga duulimaadka ee hawada sare waxaa la sheegay in ingiriisku diyaaradaha miraajka loo yaqaano ay ku direen halkaasi oo iyaguna ay gaari waayeen in ay diyaaradahaasi cirka xagga duulimaadka ay ku gaadhaan diyaaradahaasi ayay filayaan ingiriisku inay ku socdaan suuriya oo laga sheegsan yahay in hobka lagu yeeri ka haysato
محمد مرك قاركود أصحاب تاديو مركاد لك فتميسا ما العيار يسوكله تلفونات كل هذا ليسون ما يسقدك تا ضدك كلا ورياشي سياسيين ما يوجه البيت جريش أيوه هاي ما تقول عن شيء هذا باللي ورياشاس هاد شكون على أنا هذا قف قيادة قف كلا يسكت قدكتو يعني وجه شعرين وقت واتي محمد متان حرسي محمد سيارو أديات بعض ما تصنت